السلام عليكم. tobanka xayawaan ee ugu khatarta badan adduunka. Number 10 Cape Buffalo. Xayawaankani waxay u socdaan kooxo badankana waxay weeraraan gaadiidka dadka socdaalayaasha ah waxaanay ku badan yihiin sub-Saharan Africa. Number 9 Hyena. waraabuhu maalintii badanka waxa uu weeraro laakiinse marka ay cadceedu dhacdo waxa uu weerar ba'an ku hayaa xoolaha iyo dadka noolba. Number 8 Cone Snail. xayawaankani waa mid aad u qurux badan waxaana laga helaa meelaha biyaha diiran sida Caribbean-ka, Hawaii iyo Indonesia. waxa uu leeyahay ilig dheer oo sida irbada ah, sunna waa uu leeyahay haddii uu kugu mudana waxa uu sababi karaa dhimasho halis ah. Number 7 Golden Poison Dart Frog. rahani waxaa laga helaa koonfurta America waxaa diirkiisa hoostiisa ku yaala qanjidho sun ah taasoo sababi karta dhimasho haddii aad taabato. Number 6 Box Jellyfish. xayawaankan waxaa laga helaa badweynta waqooyiga Australia waxaana uu leeyahay sun haddii uu ku qaniino suntaasina waxay toos u weeraraysaa wadnaha, neerfayaasha iyo unugyada maqaarka. Number 5 Pufferfish. xayawaankan waxaa laga helaa badaha kulaalayaasha ku yaala sida Japan, China and Philippines. waxa uu leeyahay sun khatar ah oo keeni karta dhimasho. Number 4 Black Mamba. maskani waxa uu ka tirsan yahay specieska King Cobra. dhererkiisu waxa uu gaadhaa 14. waa maska ugu dheereeya masaska waxa uu jaraa saacadiiba 12.5 mayl. nasiib wanaag haddii aad wax ku dhufato waa uu kaa joogsanayaa markiiba. suntiisuna waxa ay dili kartaa 10 qof markiiba. Number 3 Salt Water Crocodile. yaxaaskani waxa uu ku nool yahay qaybo ka mid ah India, Vietnam ilaa Australia. waxa uu dhererkiisu gaadhaa 23 feet, culayskiisuna 1 tan. Number 2 waa duqsiga ugu khatarta badan adduunka qiyaastii waxa uu leeyahay 8 ilaa 17 millimeter. waxa uu sababaa xanuunka loo yaqaano sleeping sickness, xanuunka hurdada. waxa uu sababaa in qofka dabeecadiisu isbedesho waxaana uu sababaa dhimasho. Numberka 1 Mosquito. kaneecada xayawaanka koowaad ee ugu khatarta badan adduunka marka la eego dhimashada ay sababto. waxa laga helaa dhammaan caalamka meel kasta marka laga reebo Antarctica. waxay ka kooban tahay ilaa in ka badan 3,000 oo nooc waxaanay keentaa xanuunada sida malaariyada, elephantiasis iyo qaar kale. fadlan haddii uu ku cajabay videogan u gudbi walaalahaaga, like saar, subscribe garena channelka YouTube-ka. aad ayaad mahadsantihiin dhammaantiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.